السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الميل بادوني دافيدا كجوتان مقعي محمد سعد مسترنين يوتيوب كاga daawanaysidna waa Moha Saacid Masarnayn fadlan ku soo dhawo channelkayga hadii aad ku cusub tahayna subscribe oo ka mid noqo family Masarnayn mahadsan maanta muuqaal cusub iyo gumeysi ka kicin markaan dhaho gumeysi ka kicin dad badan waxay isleeyihiin odayga maanta muxuu wada gumeysi dadka la kicina maxay tahay waxaa jira fanaaniin badan oo maskaxiyan loo gumeysto kuwa badan waxaa jiro hore aan uga kicin gumeysiga haddana waxaan isku dayaynaa kuwa kale oo maskaxiyan loo gumeysto ayagana in aan gumeysiga ka kicin oo aan isku dayin inaan mar kale haddana ka kicin cadowga heystaa waxay yihiin cadowyo fara badan oo haddana wajiyo badan leh aan ka bilaawno fanaaniinta heesa ee heesahooda intii lacagta ku bixiyaan ugu yaraan lacag $1,000 $800 ay ka baxdo oo lacagtooda ay u dhiibaan studio iskale ee camera iyo qalab wax lagu duubayo wato danna dhaha codkana ka qabanayo ana ku edit gareynaa lacagta intaas la bax oo qarashkaas uu siiyo kadibna heestii markii la kala kiciyo oo heestii la duubo ee haddana la soo geliyo YouTube ka isla ninka studio lahaa marka waxaan rabaa fanaaniinta aqliga ka maqan iyo meesha laga heesto inaan wax yar aan u muujiyo محما هيست واربتا وادوبت هيستي لعاقة كاغا بحث قرش كاكا بحو إلا قلبك أديك مليه نيكان كادو باي إديترك أديك معهن أوكي قرشكي وكاب حي إن $1 إن $200 كاب حي لكن محاكو ديدي وريا فنان أديك كل واحد لا محاكو ديدي إن عاد يوتيوب سميستيد أو عاد هيست هذا أديك قشتيد هيست هذا أنا قرش كصبح أديك إنا قادتي ma ogtahay ninka heesta ka duuba heestaada markuu galiyo YouTube kiisa imise qarash ka heli karaa studio badan hadda waxaan naqaanaa 2 billion 3 billion maray hal hees kaliya ah heestas waxay sameyn kartaa $6,000 heestas adaa iskale YouTube hadii aad samaysatid ninkan studio heesta qof taqaana mar laakiin adiga hadii aad YouTube samaysatid waa lagu yaqaanaa fanaanada magaca leedahay heestada lacag badan ka sameyn lahayd marka isku day fanaanka heesaha loo duubo ee haddana heesaha studio kale iyo YouTube kale loo galiyo in aad adiga YouTube samaysatid si aad heestada adiga mir dhalkeeda adiga aad u nafcisid haddii kale weliga Allah maskaxda sidaas gumeysi uu jiraysa oo saas lagu heesanaya taas waa kuwa heesaha qaada ee haddana heesahooda laga heesta ay lagu baameestir aykan aan todob ayaga lacag la sii qaadaba kuwaas okay waxaan rabaa kuwa labaad waxa jira sharaftooda iyo izigooda iyo karaamadooda iyo fanaanimadooda ay kala lacag ku sii bixiyeen meesha ay kala lacag la siin lahaa oo sharaf loo yeeli lahaa oo ay kala qadarin lahaa hadda fanaaniinta caalamka kaleeto kulligood ay kala qadariyaan shacabkooda ay kala qadariyaan madaxdooda ay kala qadariyaan ay kala qiimeeyaan laakiin annaga fanaaniinta Soomaalideena waxaan ba aragnay sanadahan dambe fanaan isaga lacag baxsanayo si sharaf loogu yeelo waxaana sharaf u yeelay qof aan la aqoon magac aan lahayn meel lagu soo hagaaga aan lahayn oo hal maalin oo kaliya meel yar inta uu naashnaashti dhahay meeshaasan abaalmarin ku bixinaya sida kuwa awaadka lahay Kenya oo kale ee fanaaniinta inta lacagta ka qaatay dadka kale shacabkan lacagta ka qaatay dheen anaga bilad ku siinayno anaga wax ku qabanayno waxa arkay fanaanka Qadar Keyo oo ka qeyrina arintaas wuxuu ka dhawaajiyay in fanaaniin badan lacag laga qaatay iyo dad kale oo shacab la dhahay biladaas waa idin siinayna lacag keena meesha kale waxa iga muuqday fanaan weyn oo magac leh Sultan Seraar oo meesha bilad lagu guddoonsiiyay horta biladaasi wax qiimo ah meesha kama joogto waa $20 iyo $15 wax la halmaalo waay wax is weyn ma aha laakiin waxaan rabaa fanaank goormu awood isku yeeli karaa war horta adiga iimaanka alla ka qaaday qof isku yeel qof malihid fanaanku waxa la rabaa qof inuu leeyahay fanaanku waxa la rabaa in uu yahay qof sareeya si cirdi iyo sharaf uu u yeesho sharaf malihid sharafta Allah ka qaaday dulli aad tahay aroosida ka heestaan aroosa tageysaan $200 ku tumeysaan hadda fanaanin waxa la ii sheegay Muqdisho aroosida wallahi bilaa laga xirto صون لقوا عنه أروس تجا فنان مقع ولا هي مرة إنا أنت كشجعه لكن أروس قريت الجع لناي يا أسكو كنا وحس أسا أسكو كنا فنانك وحال بقى إنه قيمة ليه
iska kibrin dadkaaga shacabkaaga ha iska kibrin laakiinse isqiimey qiimo lagugu soo raadsada yeelo ashluq qiimo lagugu soo raadsado yeelo adaan kula hadlaya fanaankaagan maliyid waxa qiimaha hadda ciyaal yaro sujuu ah kenya waxay dhaheen dhalooyin yaraan bixinaynaa lacag keena imise qof lacag ay qaatay imise fanaano waaweyn meesha tagay oo haddana aan qiimo ku lahayn marka adiga isqiimeysid brother ama sister marka isqiimeysida aad dadka ku qiimeynayaan marka adiga isla khobweynaatid marka taa ogaatid minbarka taagan tahay heerka aad bulshada ka taagan tahay markaas aad isla khobweynaanaysaa oo dadka ku qiimeynayaan bil meter ka soo qaad dayaxdan nurshe aniga saaxiibkay waay sida ay tahay dayaxdan nurshe maanta dhulku galay maxaa dhulka geliyay waxaa dhulka geliyay marka hore markii Djibouti markii loo diri jiray fanaaniin badan oo Soomaaliya jirtay oo ka caansan ka magac dheer ka fanaansan haddana asoo cunug yar oo soo kacaya la gacan qabtay fanaaniinta waaweyn oo kale leberkiisa laga dabageeyay oo waaweyn kadib Djibouti loo diray fanku ka qayb galay Djibouti markuu soo laabtay dib dib dayaxdan nurshe u arkay aroosyo soo kaheysay ugu dambeysay way qofkiisa waa dhac marka cunug yar boo aroosay laba naago aroosiisa $100 ay ku soo oo u heystid waa lose garowaysaa waan lumaysaa qadarkeeyo waa fanaan buuxa laakiin hadda sida ila muuqato dhulku gal rabaa asagan maxaa keenayo marka hore wuxuu ahaa nin maslaxada ka heeso oo meelaha waaweyn tago laakiin qobweynidiina dhimatay kulligiin hadda raggan awoodka la hayo maalintii ay qabanayaan barnaamijkaas waxay rabeen in ay ku soo daraan iidla yare afcad wuxuu ku dhahay yaana la igu soo darin hadda muslimtiin fanaaniina iga badan ku darsada aniga yaana meesha liikeen iidla yare wuxuu ogaa in ay waxaan imaanayaan iidla yare sameeyay lacagkeen magacaaga aan ka iibino hadda waxa wax sababta fanaaniinta maskaxda looga haysto madaxa looga guumeysanayo asigoo sharaf leh ee magac leh ee magaciisa lacag ku iibin kara oo lacag ku sameeysan kara alle magacaaga dadka saan ugu sheegno lacagkeen بالله عليكم أولاد خير هيننا أولاد عايشك آذن أجري حسنات اللي كسو قلين فسقي إبلايا مركو بوديني فسقي إبلايا يحسن شرف كويشة نعم الله إسكار بينا أنت مقدر بس ما سو قصي وذاكر باش أوكي دنت إن قنان تكتب أمسو قدبنا والعقل يشا هذا عقل لهين تقدر كالي كمان